ناظرها أشرقت بالكون بالبهج صلى الله على البهج رأت للناس بالفرج الله وجهك لو والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج xaafadda Qumbucoole ee degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taasi oo ay ku qalin jabiyeen arday madrasada Al-Aqsa ka dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo qaar kamid ah kutubada cilmiga xafladda oo ahayd mid si qurux badan loo soo diyaariyay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirtay mashaayikh mucallimiin iyo waalidiin kuwaasi oo xafladda lagu casuumay sidoo kalena munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa maamulaha guud ee madrasada Al-Aqsa Macallin Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed ugu horreyn waxaa munaasabadda daahfuray Macallin Cabdiraxmaan Cumar isaga oo ka warbixiyay qaabka ay madrasada Al-Aqsa u shaqeyso iyo heerarkii ay soo mareen ardayda qalin jabisay kalimadda daafurka ee Macallin Cabdiraxmaan Cumar soo jeediyay kadib waxaa xigay kelimado kale oo qiimo badan oo ay soo jeediyeen qaar kamid ah mashaaikhdii mucallimiintii iyo waalidiintii munaasabadda ka soo qayb gashay madrasada Al-Aqsa oo ku taala degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu bartaa Qur'aanka Kariimka ah iyo qaar kamid ah kutubta asaasiga ee shariicada Islaamka madrasatul Aqsa waxaa la aasaasay 2020kii dhamaadkeedii bishii 10aad muddo 4 sano iyo bar ayaa arday wax lagu barayay welina in wax lagu sii baral rajeynaa haduu Ilaahay idmo maantana waxaa ka qalin jibinayo waa dufcadii labaad u joognaa dufcadii koobaad sanadkii hore bilowgeedii ahayd sanad kadib arday 20 arday gaarayso in macalinka uu soo saaro runtii waa dadaal iyo juhdi badan la geliyay macalinkana waxaan leenahay jazaahullahu alkhayr waalidiintana ayaguna way mahadsan yihiin maadaama macalin kaliya arday wax ma bari kare waalidkii macalinka oo iskaashada ayaa ardaydan qurux badan soo saaray ardayda ayagana waxaan leenahay jiilkeedin ka horeeyay in sidaan inta la isugu yimaado munaasabad iyo xaflad loo qabto waxa waa ayagu nasiib uma yeelanay adinka nasiib kala leedihiin oo inta meel la idin sharaxo masaajid la idin keeno culimadii iyo aqayaartii iyo waalidkii meel la isugu keeno waqti la idin la qaato runtii adinkana waxay idinta nasiib gaar ah marka jiilka dambana ayagana waxaan rabnaa jiilkii ka horeeyay wadada ay mareen oo waqti kooban quraanka inay ku dhameeyaan macnaa 4 sano bar arday 30 iyo dheeraad ah in la soo saar runtii waa arrin yaani bogaadin mudan waaye macalinkan uu ku mahadsan yahay marka mar labaad mar saddexaad soo dhawaada haddii xoogaa meesha kuleel iyo caqabado kale ay jiraan waxaan rabnaa in lagu dul qaato marka munaasabadeeni iyo hawshayni way noo daafuran tahay maxaa yeelay anuga inta oo yar yahay maaragtay weli uusan weynaanin waa la tarbiyin karaa waana la edbi karaa aadaab wanaagsanna waa lagu tarbiyin karaa waxay yiraahdaan culimadu anuga marka oo yar yahay waa geed hadda soo baxayo kaleeto geedka markii la talaalo oo soo baxayo waad aragtaa geedaha dhinaca loogu xirxiraa si oonan qallo ugu bixin marka geedka aanan geedo dhinaca loogu xirin si qallo ugu baxa hadhow hadoo weynada la toosimo karo anuga yarna waa sidaas oo kaleetoodo marka oo yar yahay waa la edbi karaa waa la tootoosin karaa waxba loo sheegi karaa waa la edbi karaa laakiin anuga mar hadoo weynaado oo baaluqo oo qaan gaaro ma aragtay oo soo madax taago sida lagu edbo ama wax loo sheego ama wax u qaataa aadi u adkaanayda marka waxa la rabaa anuga inta oo yar yahay in la edbo oo tarbiyo wanaagsan lagu tarbiyeeyo oo lagu edbiyaa la rabaa nabigeena kaleey salaatu wa salaamna aadaabta wanaagsan ilaahay ku edbo wuxuu nabigu yiri adabani rabbi fa ahsana taadibi rabbigayga edbiyay fa ahsana taadibi aadaabtiida waa wanaajiyay nabiga ahad tarbiyay ma jiro rabbul alamin ka tarbiyay sida aan wada ogsoonahay hooyadii iyo aabii waxay dhinteen asagoo oo yar dhinteen hooyadii aabii asagoo oo calool ku jiro ba dhintayba hooyadiina 6 sano iyo meelaha sala tilmaama isagoo oo jiro dhintay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay ayadan ku furfuranay qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun wuxuu leeyahay nabi maxamedow waxaad ku dhahdaa
mu'miniinta waxaad ku dhahdaa hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun war dadka wax yaqaano oo cilmiga yaqaano oo diinta yaqaano iyo dadka wax aqaanin ma siman yihiin maba sinne oo waa istifhaam inkaari ah oo meeshaas waxaa lagu tilmaamay darajada ay leedahay aqoonta oo hadda aan maanta u joogno kalaamullaahi xifdiskiisana u joogno taasu marka waxay tusay dadka aqoonta lehna inay ayana darajadaas ay leeyihiin sida ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayado kale quraanka oo ku sheegay yarfa'illaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutul ilma darajaat ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu kor yeelaa dadka mu'miniinta ah oo idinka mid ah oo kor yeelaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala kadibna allah ayaa mahad iskale meeshaas uu kaan keenay dhamaanteen alxamdulillaah nimcada ilaahay oo nasiiyay oo islaamnimada ah ma sha Allah kadibna waxaan mahad celinayaa macalinkeena qaaliga oo diinka ilmaha noo baray ma sha Allah aad ay u mahadsan leenahay maamooyinkana sidoo kale aad ay u mahadsan yihiin oo ku soo tarbiyeeyay oo ku soo dadaalay inay ilmaha diinka u soo diraan waayo cunugan hooyo lahayn wax ma baran karo ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وعد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مقدر وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله يسرنا الصفة فالله موجد قديم الباقي مخالف للقلب بإطلاقه يقول راجرا مات الغفور زمان سليمان هو الجمسوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النار مريدي بنون والتويل والمدود سميت بتحفة الأطفال أنشاقنا الميت الكمال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين